haddaba waxaan leeyahay ardada badda casmaanta soo gashay iyo kuwii hore u dhiganayay billaahi calaykum bal sideedaa qodob akhriya oo isku daya inaad naftiinna horta bal wax ka beddeshaan adduunka aadanaha ku nool wuxuu u qaybsan yahay marka loo ableeyo bulshooyin ama dalal wuxuu u qaybsan yahay dalal hormaray iyo dalal dib u dhacay dadka marka la kala ableeyo innagu waxaynu ka tirsannahay bahda weli dib u dhaca ku jirta maxaa sababay inay bulshooyin hormaraan bulshooyina dib dhacaan maxaa sababay China oo wataniye ah 3700 ilaah rumaysan inay hormarto Soomaaliya oo 100% muslimiina ay dib u dhacdo maxaa sababay Japan inay hormarto dad badan oo muslimiina ay dib dhacaan sideeda waxa laga yaabaa hadii hadda aan isweydiino bulshooyinka jabay waxa lagu yaqaanaa eedda waxay saaraan banaanka waxana isticmaalka dhibaato nooga tagay isticmaalkaana qaybiyay reer galbeedka noo ogolayn inaan hormarno gaalada noo ogolayn waxa soo dhan iyagoo haddana awaamil khaarijiye ay jiraan waa excuse aan sax ahayn adiga horta bulsho fiican ma tahay adiga qof fiican ma tahay markaas waxa eedayn kartaa banaanka sida daraadeed waxaan rabaa inaan hadalkayga ku soo koobo 8 barometer ama 8 micyaar oo lagu cabiro horumarka bulshooyinka ayaa jira 8 micyaar haddaan iska dhisno waxaan noqonaynaa shaki waxaan lahayn bulsho horumartay micyaarka u horeeya waxa weeye al-karaama al-wujudiyya lil-insaan bulshadeenu maxay ka rumaysan tahay bini aadanka innaga bulshadeenu maxay bini aadanka ka rumaysan tahay ma waxa aaminsan tahay markaan de runta sheegno innagu karaamada insaanka iyadoo aynu muslimnahay quraanka aan akhriyayno hadda ka horba oday wuxuu yiri Soomaalidu quraanka waa taqaan waana run waana ku shirfan tahay dad quraanka aad u xifdiyo weeye laakiin wuxuu quraanku uma shidna quraanka soo kuma ayna dhigan wala qad karramna bani aadama soo kuma ayna arag bini aadanka ilaahay wuu karaameeyay quraanka waxaynu ku dhiganay inuu bini aadanku yahay khaliifatullaahi fil ard inni jaa'ilun fil ardi khalifa laakiin anaga maxaan ka aaminsanahay waxaan ka aaminsanahay insaanka inuu laba u qaybsan yahay gun iyo gob ma beentayba gun iyo gob haddaan banaanka fadhi ku dirka fadhino waxa la kaas inuu gumeed way kana gob way bulshada waxaas aaminsan waa bulsho dib u dhaca ilaa ay ka baxdo oo ay aaminto aadanuhu hatta hadduu gaal yahay sharaf u leeyahay iska dhaaf muslimka hadduu gaal yahay hatta maadaama uu insaan yahay karaama wujuudi u leeyahay ilaa mujtamacu uu sida wada rumeeyo mujtamacaasu mutakhallif buu ahaanaya ku dheeraan mayo micyaarka labaad waxa weeye tabiicada maxaan ka aaminsanahay halkan badii baa ku taala bahr al-adan gulf of adan halkan ku yaala waxa wadankeena ku yaala Indian Ocean-ki waxa ku yaala buuraha calmada iyo calmiskaad waxa wadankeena ku yaala laba webiga Jubba iyo Shabeelle waxaynu leenahay qaabaad iyo dhul kayma ah waxaynu leenahay ugaarin kasto hadda iska sii dabar go'ayso maxaynu ka rumaysanahay dabiicada waa qurux badan tahay meeshan snapchat-ka soo dhigo isku sawir meeshan ku soo raaxayso biyaha laag tag oo ku soo dabaalo dabeetana sawir ka soo qaad gabadhuna hayso soo sawirto TikTok ha soo dhigto wiilkuna TikTok ha soo dhigo bulshooyinka sida dabeecada ka rumaysan waa bulshooyin mutakhallifa bulshooyinka dabeecada ka rumaysan inay fiiriyaan oo baaraan ya qul siiru fil ardi soo quraanka kuma inaa dhigan يعني وحوي حتى نفتنا لير وفي أنفسكم نفتينا آياتك إلهي دتك تدبره أو باربارة أو راعة وحين نقدام بالشوين هرمري مركا إنجا وحب علم بارس وبدل القسم يصومالي سما يسمى هيسان وبيض علم بارس القسم يملا هيا معادين تقول كأنه كجرة هذا وحلي يقول كان نوع بوحة معادينها كبوحة أنا جاجان ندي شيء ودن كبترولها كجرة بجاجان ندي شيء محن لنا maraykanka kayd ka dhigtay wadankeena oo diiday in la soo baxo maraykanku ma isaga ilaalin joogo in la soo baxna daan la soo bixi karno inagii baan wax ujeedaa aynu ka leenahay barwaaqada alla inoo galay aan jirin
معيارك صدحات وحاوي العلم وأنا كان هذا مناسب كأ أرضي جامعي كأ وما أنت جامعة بلا بايا هدف كيس محوية ما إنه شهادة باجلار قاتها ما إنه مستر قاتها ما إنه مستر أما بي أجلي سمايو وشركات أما الدولة ده كشقايو مشهر قاته خير كي سبيلية هذه نظرته أنت تهي بلشة النوع عاسي وبلشة متخلفة محل جامعة لأنها سكولان لأنها محل وايي علم بارس أي صاران إنستيوشن لأن علمي محل وايي أرضه إنه إنه سميان علم بارسيو بلشة وحكو كرديناي ماشى ده سنغافورة إيو جبان إيو تشاينا إيو سنة دول بلا صاران أنت صو علم بارسود إسكان أفرق قلبيتك كلاته هذه نظرة هذا تهي شهادة قاضو يا أما أرض جامعة أسر ريان نقول هذا مشهر قاضو أنت هذا أركض هذا كوكو بنتهاي بلشة وليد وحياة نقول إيسا بلشة دبعسن وإن أركض هذا النقطة إن علمي جا الدنيا ده وحكسو كرديسيد معيارك كلاته وحوي العمل شقة محين كرم يسنة بلشوين كهرم مر شقة وحي كرم يسين جبنيمو إنه تمه الجراء العقاته شرف وأركان لكن أنا محاورنا شقة هدانا أريد دوفين أما ما يدي سوا شقين أما سوا كلو ميسن أما أسكر دولة ده وشقيس أين نقول إن مسخوش اللقطه إن ما دبر كلو حماله إن اللهم استعان على ما تمه الجراء إن كبه الله بالشه خاصة ضدك أن منطقة نقول شيء محن وارجنا عيب إنها تسمع بلشة الشقبة كأمن سن عيب وبلشة متخلفة قدام جبان محي وهرمرت جبان شقالها جد كنظيفية إيه وزير كشقالها جد كنظيفية أيام شهر بدن وحي تسين بلشة ده أوجيسيين إن النظافة ده تاي شيء مهم يا إننا الدين تنا بدأ إنه شيء يسنا نظافة ده لكن إنه مشدنا بارامترك شناد وحوي وقتك سا إنه أرجنا وقتك بلشة باشالك وحلو يقانا والله بالله ومددي وآخرستي لبس ساعة واي مددي وفانسنا هي مركا إن أرسنال يمجسر يونايتد كسر في الصداقة وقتك عن سعودي له إلى لح ساعة بلشة أفر ساعة وقتها أما 8 ساعة وقتها دي ليس بلشة ده سوا بلشة دي بدعة لكن بلشوين كهر مرة وقتك وحيوار كان محي إنه يهاي هنتي وقتك إنه هنتيه قرآن كمركات في رسي سنة دبا عمري جاga إلهي سبحانه وتعالى عصرك كدارنا يا فجرك كدارنا يا ليال بكدارنا يا إلهي سبحانه وتعالى نبينا صلى الله عليه وسلم حين هو شيء إن وقت جاga لجوا الدين دور خاصة ضل يرى ماذا هذا أتكدرتان إن سجارة لجوا الدين دور ما حد كله بس وقت جا واحد أتكأ من سنتها وحكو حرنتها بالشداد إنه هرمرته برامتر كلا وحوي الدين تبع حكى من سنة أنا صح ضد مسلمنا إلهي يقانا أهل الدين عن هاي دين توحي عنك كأمن سنة لكن هذا دين تو أرجناه إن يتهي صلاة إلا تكده والد كبار اللون نقض كليه هذا ساو أرجنا دين تا إلهي إنا وحدد والد كبار ونقطين صلاة تكتين صونتين زكاة بحسد دين تو أنت كليه ما دين تو نلش أن يا عرور هذا يحاس كذا بيل كذا صوش قيس أسين يسد وأنا أمنت إنه عبادية درت أدبير يسد يقول كذا تقول حنا يسد وأنا أمنت إنه عبادية دينته waxaad ka aaminsan tahayna hadaan la ki tiraahid ummadda waxaan farayaa kulli waana wax badan waa sheegay zuhdiga qofka asaga laga rabaa inuu zuhdi sameeyo laakiin zuhdigu ma aha in la shaqaysan ma aha in la hormarin ma aha dhar wasakh in la gashto ma aha in bulshada mutakhallif noqoto labada qodob ee ugu dambeeya waxa weeye maxaad ka aaminsan tahay oo bulshadaas ay ka faa'iideysan tahay muwaatanada يعني مثلا هذه قف أجنبي إنه يماده محينه كأمي سنة محا أجنبي كشيكتا هذا وديك أركان لاسعانود وحكتاجن ضدن أو قبل لك السجيدة إن أنت بابور لجو جرو أو لرافه أو لإرادتك ولا صدقك وضد واحتر أجو دكان إليهين بجاجي إليهين جريه اللسان كبه بالشان بيه داميان ومجتمع نافعة كل جيس واحترة ومجتمع مستهلكة أو ودن كي جريه كدجن جريه مارتا أديجن يوح استعماليه aragtida aan ka haysano muwaatanada iyo qofkan inuu wadani yahay inta ay ku saleysan tahay jaasnimo reer hebel ba halkan degan tuuladan reer hebel iskale magaaladan reer hebel iskale magaaladan waa ina annaga kaliya in waxna laga dhageysto waa inta aqliyadaas bulshadeena ku jirto waxaynu ahaanaynaa bulsho mutakhallifa bulshooyinka hormar laakiin maxaan arkaynaa
gabar Soomaaliyeed oo qaxootiya inay sanadka Mareykanka fariisato sanadka Mareykanka inay fariisato mid kale oo qaxootiya inay baarlamaanka Norway gasho mid kale oo qaxootiya inuu baarlamaanka Yurub galo bulshooyinka hormaray waxa weeye muwaatanada waxay ka leeyihiin ru'yo waasica oo la rabay sida islaamnimadu ay tahay in looga haysto laakiin inaga wali maxaan taaganahay boosaas wada joognaa Soomaa hadda hadii la weydiiyo inteenan yaa boosaas iska leh kulliga waa isku qabsanaynaa reer annaga iska leh annaga aasaasnay annaga asaaska muxuu awoowaha haduu aasaasay weesh mushkila magaaladaas oo cidla ah oo aan koronto lahayn oo biyo lahayn oo gaajo loogu baqtiyayo ka tagay soo ma jeedin istiilna wali hoog iyo baa ka taagan oo dariiq mucabbada male oo geedkii male oo kaamale oo ka hadaadan wadankaaga waxba ku kordhin karin ana la maxay ku taraysaa waxba kuma tarayso waxaan ku soo gabagabeynayaa sidee baad u aragtaa waa isla muwaatanadii kale al-aakhar al-baciid in adeerka waa naqaan waxa ka haysatid in adeerka waa tolka waa hiilkaagi waa ina taban taabisaa gar iyo gar darro waa ina u hiilisaa waa ina waxbarashada ka bixisaa waa inuu haduu biil waayo abisha laakiin anigoo aan adeerka ahayn laakiin Soomaaliya oo ka imid meesha ugu fog wadanka maxay iga rumaysantahay sideedaas baaraamitir ama halbeegyada sideeda ah bulshadu ilaa ay ka yeelato aragti fiican bulshadaas waxay noqonaysaa bulshada dib dhacday haddaba waxaan leeyahay ardada badda casmaanta soo gashay iyo kuwii hore u dhiganayay billaahi calaykum bal sideeda qodob akhriya oo isku daya inaad naftiina horta bal wax ka bedeshaan Soomaaliga hadda wuxuu ku oranayaa dawladda may waxa samayso dawladdu wax walba ma samayn karto dawladdu bulshada ka timid hadda inaga ururada leeyo sameey ururadu waa idinka arkay ururku ma oranayo waxa saan qabanaya haduu xataa dhaha xataa ma ah realistic urba wuxuu oranayaa iska dhaaf biye ee guri walba caanaan gelinaya waa beentiis dadka wax runa in loo sheegaa la rabaa runtuna waxay ka timaadaa qofka adiga marka qof bini aadana oo aragti fiican leh oo dhisan marka noqotid oo ardada jaamacadda badda cas ay saan noqdaan oo jaamacadaha kale ardadooda saan noqdaan markaas waxa iimaanaya horumarku waa taraakumi waa wax isla kobcay oo isbiirsaday markaas horumar ka soo baxa berita idinka madaxweyne noqonaya idinka wasiir noqonaya maadaama aad aragti leedihiin wadanka bedelaysa hadii kale ta waxaad iimaanaysaa adoo wali jeesnimada aaminsano taliyaha madaxtooyadan in adeerka ka dhigaysa kan irida taagan in adeerka ka dhigaysa ummadii kalena waxay noqonaysaa marka burcad bay ku arkaysaa dadkii dhacday inay meesha ka riday rabtaa Soomaalida waxay ku daashay waa qabsaday ee ka rid waa qabsaday ee ka rid waa qabsaday ee ka rid waa ku baabaa marka fikradahaas inaan iska bedelno oo ka kobcno oo adigu aad qof noqotid ogowna quraanku muxuu sheegay ya wanarithuhu ma yaqulu wa yatina farda jazaa aakhir wa fardi adiga kaliya lagu abaal marin doona maxay daliil u tahay inaad adigu shakhsi jira noqotid oo aragti iyo hab nololeed fiican leh si aad aakhira janno u gashid bulshadaadana u hagaajisid hadalka waa dheereeyay raalli laga ahaada ardada jaamacadda badda cas war inaan macaayirtaas iska dhigno iska bedelno diyaar ma u nahay bal gacanta diyaarka barakallahu fiikum wa ma tantii